nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban yaaba idinkuna yaabkaan arkay oo la yaabay balkaalayo la arka ma arki jirtay ruuxaas waa dhaqan celis ruux lagu leeyahay oo wuxuu ka tegay dhaqankiisiisuu badhaa iyo tilmaamihii wacnaa iyo dhaxalkii waalidiinteen tusaale ahaan ruuxaasu dharkiibuu bedelay oo dharkii hadduu nin yahayna wuxuu soo ekeysiiyaa qolooyinka reer galbeedka ama hadba cidda uu la joogo caynka ay tahay ama gabadhaasu labiskiibay bedeshatay oo madaxiibay qaawad way ka duwan tahay tan labis la bedelo iyo luuqad la bedelo ee waa magac la bedelo ciidankuma khasbine iyadaa caashaqday da-deeduna 10 ka weyn 20 dhaaftay 30 jirna way dhali kartaa waxay la baxdayna ma aha kii aabaheed iyo magac Soomaaliyeed ku abtirsanaysay waa cadaan camalkiis aan cid ku khasbayn waa ina may kar ibn la daawada inta aan tilmaamay. Hej, Fardos Andersson heter jag. Och jag är ju från Kenya, men jag har ju somaliska föräldrar. Kom till Sverige 1992. Och jag är lycklig lottad att få känna Hamoud och hans familj. Helt underbara människor. De är beduin och de är grannar till mig. Jag är lycklig lottad att få träffa sådana underbara människor. De lär mig arabiska och jag lär dem svenska. Jättefin familj och barn och fru och allting. Helt underbara människor. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Markale iyo inaga iyo aragti kale oo xiiso leh. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. Allah weeyna waxaan ka wada rajeynayaa amal suuban iyo cibaado waan iyo caafimaad taama gidigeen. Waxa weeye mid kastoo muraad leh inuu muraadkiisa mid khayr ka dhigo, kuwa xanuunsan caafimaad taama siiyo, kuwa geeriyooday jannadii udgoonada uga yeelo, kuwa laga geeriyoodana oo samir iyo iimaan ka siiyo, kuwa dhasha haysta Allah weyn dhasha u barakeeyo, kuwa dhal sugayana dhal barakeysana siiyo. laba horaan dalkeena iyo nabada iyo dadkeena oo mideysana ee baa weyn waan weydiisanayaan. haddaba barnaamijka aan caawa ka hadlayo waa mid lama horaan oo dhalin iyo dhallaanba in loo tilmaamo habboon. sababta aan u tilmaamayaana waxay tahay waa wax caqliga iyo garaadka iyo iimaanka sideemka ayba uusan qaadanayn. dhaqan laga tago iyo dhalinyaro adduunyada dhalaalkeeda ifsatay waanu arki jirnay hase ahaatee waayeel 60kii kor u dhaafay oo dhaqan reer galbeed caashaqo cilmi moodaya waxaanu aragnay maaha. waxa cajiiba inaanu aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dee timaha ama isteelka ama habsocodka ama waxay kuma darnaadeen luuqadda ama labiska kaga dayda qolada reer galbeedka ama dalka ay joogaan hadba xaaladda ay tahay. carab haday joogaan carab isu ekeysiye magaranaysa ay camalkooda doona, cadaan haday la joogaan cadaan isu ekeysiye camalkooda doona, Chinese haday la joogaan dadka Soomaaliyeed waxa u fudud inay hadba meesha ay tagaan dhaqankooda si fudud ay ku yeeshaan. hase ahaatee tarbiya ka duwantay haweeneyda Soomaaliyeed videogeeda waxay la soo wadaagay walaal Soomaaliyeed oo Snapchat-ka igu soo diray waan yaabay. waa mido saddex siba waan u yaabay. wadanka waxaan u yaabay qofka kanu wuxuu ku abtirsanayaa magaca ninkeeda sidaan isleeyahay. wadee magac Swedish ayaa dib kaga taxan ama qolooyinka Scandinavian-kan isku dub dhaanay. aalana caadooyinka waxa sameeya reer galbeedka gabadhu inay ku abtirsato ninkeeda. hase ahaatee maaha wax la isku khasbo. reer galbeedka badidood cilmiga iyo caqligaas waxay qaataan maaha oo qofku waa siduu doonayay iyo wax isaga u yaalo jeeskeeda leeyahay. haddaba waxaan is weydiiyey haweeneyda tan Soomaaliyeed waxa ku khasbay in caqligeedu saa wax ficil oo fiican moodo. anigoo taa la yaaban iyo magaca qalaada sheeganayso ayaa haddana waxay tilmaamaysaa asaaskeedii iyo halkii ay ka soo jeedo. iyadu istilmaami mayso inay Soomaali tahay. Kenyaati bay isku sheegaysaa iyo isu haysataa. hase ahaatee waalidiinteed ayaa waxay tilmaamaysaa inay Soomaaliyeed yihiin. macnaha iyada oo qura ma maandoorsoobin sidaan u aragnay dhasheed iyo dhallaankeediina waa kuwaan la sugay. haddaba aragtida liidataa waa wax ka digid mudan oo dhal iyo dhallaanba in loo tilmaamo mudan. waxa kale oo cajiib ah wallahi yaab ninka carab iyo haween maxaa kala haysta. kolkii waxa la yiri dagaalkii labaad ee adduunka inta uusan dhicin gaaladu ay magaranaysaa idee ama kii koowaad baan idhaahdee ee wadamada Afrikaanka iyo wadamada muslimiinta u tashanayeen qabsigooda iyo bulshada kala qaybintooda. qolada caqli baa loo adeegsaday oo wixii markaa la islahaa waa lagu burburin karaa ayaa falankeeda ay galeen. Soomaalida iyaga hal isku diro wato qorshooda ah. carabna waxa la yiri waxba dagaal yaan lagu qaadin dumar loo dir.
ninka kan weyn ee khamiiska xiran dad Soomaalida qaar baa khamiiska diin mooda khamiisku waa wax wanaagsan oo dee sunna ahaan la tilmaamsan karo waqtigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii la xidhay jiray hase ahaatee haatan dad baa dhaqan ka dhigtay dad baa dee ninkaa marka ay arki lahaayeen is odhan lahaa war waa maxay shiikha kan asaasaqa shiikhnimo ka dheere wuxuu wataa waa wuxuu dhaqan u haysto marka qolooyinkaas kolka ay haween arkaan badidood kulligood oramayo shalay khirbi waa leeyihin camalkoodu saasuu noqdaa waa dhareerka iska daadsha hase ahaatee waxa iga daran tan haweeneeya ee ka faantay abtirsiyihii iyo aabbaheed magacuu bixiyey ee ku doorsatay meel magangelye ay ka soo doontay oo marti ay ku tahay mid ay ka heshay waxaase iiga sii daran oo qolooyin badan oo Soomaaliya laga heliyaa Kenyaan ka ibi Ethiopian ka ibi iyo aragtida liidata hadda ka hor dhalinyarada waxayna si loo sheekaynayo ma waxa arkaa nin Soomaaliyeed oo Ethiopian bari kaasa waxaan ku yidhi Ethiopian taa luqadda noo daa afka kan anaga iska leh markaasuu yidhi Soomaali Ethiopian baan saanidada wadan ahayn ama Ethiopian baa taa Soomaaliga bartay ama waxa tahay nin Soomaaliyeed oo gumaysi ku jira oo Ethiopian dhulka iyaga iyo deegaanka iyaga wuxuu ku haysto haye ka dhaadhicmayso walow ay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo aragti wanaagsan oo aaminsan Kenya iyo magaranaysaa ilaahay kuma darnaada Ethiopia dhulka ina kaga maqan inay yihiin dhul Soomaaliyeed oo xilli ahaataba aanu soo ceshan doono kolkii Soomaali caqligooda iyo garaadkooda ilaahay isu soo celiyo haddana waxa jira kuwa badan oo darajo iyo waxa weeye duntoona aan lahayn oo u haysta dalka shisheeye ee xoog inuu ku haysta ee inuu ku soo duulay ee waqtiga iyo waayaha aanu kaga faa'iideysan doono maalin oo aan ka soo celin doono inay dadkoodii yihiin oo dulaysan baa jira kuwaanu ma jecli waxaana odhan lahaa war Soomaalida ninkii diidaya magaca hawday haddii aan dareenkaagu ku siinay inaad Soomaali ku faanto inaatay oo ilaahay kaa dhigay oo dhiig iyo dhacaan badhula kan awooyaasha ay u daadiyaan oo rakaaga dhinteen qolada tan kula joogtaana dan aysan ku wadin oo dunida ay kuugu necab tahay adeer hadduusan damiirkaagu ogeyn waxa aad haysato laabta ku hayso anaga hanala soo dhexgelin taas watan kale waxaan ka digayaa war magacaadan lahayn inaad sheegato maamuus ku yeelamayso macnana ku yeelamayso waxa sharaf aad ku leedahay waa magaca aatay abtirsiinyaha aatay haybta aatay ilaah baa kaa dhaliyay ku faano ku dad haddii tilmaan la dirayana waxa kaa badan wuxuu aabbaha kuu bixiyo lama horaanka iyo waxa hooyada kuu bixis haddii ay faan noqoto iyo ficil aad doontana waxa ugu wanaagsan kanaad leedahay waxba kugu soo kordhin maayo kan shisheeyo marka waxaan kala dardaarmayaa bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa qurbaha ku joogaba war wax haray haba yaraatee ma jiraan dhan walbaba waa leeno ka soo galay oo duleeladu way ka jiraan innagay danaheena iyo lama horaan noo tahay inaanu ifino ficilka liitay ee islaamna bulshadu ku faafaya sida islaantaas ay u aaminsan tahay in abtirsiyihii aabaheed bedesho oo nin cadaan ku bedelato ayaa kuwa kale oo dhalin iyo dhalaanana wax fiican moodaya dabeetana ficilka liita sameynaya marka waa inaanu ka dignaa oo dhash iyo dhalaanka uga dignaa oo nirahnaa war ku faana magacyada waalidiintii ogaadana cid idinku khasbi mayso caqli keeni mayso nin kale oo magaranaysa ibn aadana oo aan ku dhalin inaad magaciisii ku abtirsato waana aragti liidata oo sida ay halakan saameyn ugu yeelatay islaanta u fududaan karta bulsho badan oo Soomaaliyeed oo dalkii joogta inay ficil fiican moodaan marka waxa weeye intaan nool lahay carab iyo dambe waanu kaga direynaa wixii dhaqanka u liita idinkuna waxa weeye wixii aragtiya iyo fikir waa lama horaane intiina hore u joogto ma hasantihiin kuwiina dib joogana waxa weeye dhiirigelin bay noo tahay subscribe to sida barnaamijkan oo kale waxa weeye inta dib ugu kulmaynana warsan iyo war khayr iyo dhaqankeena aan dooranno inaga dheef ku haynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh.